سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها kadib markuu adkaysan waayay qaylada xaaskiisa ay wuxuu isiri bal ku soo dacwo madaxa muslimiinta laga yaabo agtiisa inaad ka heshid wax xal ah oo arintan aad ku xalisid kadibna wuxuu soo aaday gurigii madaxa muslimiinta kadib markuu guriga ku soo dhawaaday ay wuxuu maqlay qaylo ka daran tii asaga guriga ku haysatay wuxuu arkay qofka uu soo raadsaday inuu ku cawaado oo uga sheegto mushkiladda xaaskiisa in asagaba ay haysato mid ka daran mid asaga haysato kadibna wuxuu isjiri meeshaan xal kuma yaale iska noqo markuu damac inuu laabto ayaa waxaa gadaal uga wacay madaxii muslimiinta uu u soo aaday si ugu dacwoodo kadib wuxuu ku yiri nin yahow maxaa dhacay maxaa u timid wuxuu yiri waxaan kugu imid inaan kaaga dacwoodo xaaskayga kadib markay ugu wareerisay qaylo waxaan isiri madaxa muslimiinta aad oo ku dacwo kana ogow bal wax fikrada ah oo maaragtay aad ku xalan kartid arinta mushkiladan ku haysata balse markaa imid gurigaagi waxaan maqlay qaylo ka daran tii aniga bay haysatay saadaradeed waxaan isiri meeshaan xal kuma yaale iska noqo wuxuu ku yiri madaxii muslimiinta wuxuu ku yiri ninkii nin yahow dhageyso qoftaan u jeedid waa xaaskayga waxay i haysaa caruurteeda waxay i xanaanaynaysaa caruurta waxay i dhaqaysaa dharkayga waxay i karinaysaa cuntada gurigoo dhan ayay iga haysaa miyaanan ugu dulqaadan karin miyaanan ku sabri karin wax yar oo qaylo ah wax yar oo hadalkayga ay ugu soo celiso mase ay u qayliso miyaanan ku dulqaadan karin ninkii indhaha u furmeen intaan way ku filneed una iska laabtay amiirul muuminiin madaxa muslimiinta sayidkeena cumar ibn khataab wuxuu fahmay sirta lagu kasbado jaceylka iyo qalbiga xaaskiisa waad ku mahadsan tahay daawashada videoga kadib markii aan duubay videogii koowaad aan uga hadlayay sidaad ku hanan kartaa qalbiga ninkaaga waxay soo weeraray gabdho waxay nagu yiraahdeen see waxa wada adiga maxaa weerarkaan ugu haysid anaga awalba waxaa iska ahayn baariyaal nimankan awalba u naxariisan jirnay base mushkiladu waa nimanka ayaga ayaa ah kuwa u baahan inaad la hadashid la hadal ayaga anaga naga wareeji haddaba videoga wuxuu ku saabsan yahay nimanka waxaana cinwaankiisu uu yahay sidaad ku hanan kartaa qalbiga xaaskaaga gacalisadaada fikradaha aan ku sheegi doono halkan asalkooda waxaan ku qoray buuggayga sidaad ku hanan kartaa dadka jaceylkooda in daqiiqad ka yar iyo buuggayga labaad ee hooyooyinkeena haddaba maxay yihiin fikradahan waa 20 fikradood sida kuwii horeba maxay yihiin kow fikradda koowaad si aad u kasbatid jaceylka qalbiga xaaskaaga fikradda koowaad waa inaad ogaatid inay tahay qof adiga oo kale ah qoftan aad isguursateen waxaad isu guursateen jaceyl iyo heshiis idinka ay heshiisiin Soomaa ma ahan qof aad iska soo wadatay si ay kugu samayso howlahaaga guriga uma keensan si ay kugu shaqeyso waa qof aad jeclaateen waa isfahanteen isku mid aad tihiin adiga kama salaysid ayada bas waxaad tahay isku mid ah isku aqli isku fikir isku aqoon Soomaa yani adiga ma tihid 100 ayada ma ahan 50 waxaas ma jiraan 50 100 ma jirto meesha isku mid ayaa tihiin aqliga ayada Ilaahay siiyay adigana wuu ku siiyay aqliga alle adigu siiyay ayadana wuu siiyay
fikirka aqoonta shakhsiyadda wax walba isku mid ayaa ka tihiin kama sarisid adiga ka dhaadhicin maskaxda midaas ka saar saaxiib ka bixi midaas qoftan waa qof adiga kula mid ah alla waa garsoor isku mid ayaa tihiin qofna ma dulminayo alla subxaanahu wa tacaala saa darteeda ogow marka horeba oo kar midaan markaad midaan kartid waxyaabaha ka dambe waa iska oka laakiin qof maskaxiisa marka horeba ay ku xiran tahay inuu isaga yahay qof sareeya inuu isaga yahay libaax inuu maaragtay qoftaan ay tahay qof oo isaga uu maaragtay uu siduu rabo ka dhigan karo la ma anfacaysa midaas ma jiraan waxaas balse waxaa hubaal ah inay jiraan gabdho badan oo ka sareeya niman badan dadka qaar waxay u malaynayaan aayadda oranaysa walaysa dakaru kal untha inay macnaheedu tahay in nimanku ay ka sareeyaan balse saas ma ahan aayadda macnaheedu waxay tahay amaan waxaa lagu amaanayaa sayida maryama ayaa lagu amaanaya calayhi salaam waayo ayadu waxay ka sareysaa kumanaan nin ah soo maaha maryam calayhi salaam ayaa lagu amaanayaa waa amaan maaha in ninku ama raggu ay ka sareeyaan wax sareen ma jiraan waxaa lagu kala sareyn karaa oo keliya aqoonta iyo sida wax qofba waxa uu shaqaysto asaga nin iyo ragba waa isku mid midaas ogow marka hore okay midaas meel iska saar qofta inay tahay qof adiga iyada isku mid tihiin wax walba xor ay u tahay aqligeeda fikirkeeda wax walba ay xor u tahay aqoonteeda gurigana aad isugu timaadeen meeshaan heshiis idinka ay dhex maray iyo jacayl waxa ay ku sameynayso alxamdulillah haddii wax ku sameyn haddii diido labaduba xaqa u leedahay wax qasaba ma jiraan meeshaan okay taas ma isku raacay fikradda labaad ixtiraam oo qadari ixtiraam doorashooyinka ayadu ay qaadato waxa ayada qaraaradeeda ixtiraam waxa ayada ay doorato ku ixtiraam kuna qadari wax ay ku sameynayso ku qadari wax ay ku karinayso ku qadari dharka ay ku dhaqayso ku qadari caruurta ay ku hayso ku qadari guriga ay ka maamulayso wax walba ay ku sameyso waxaad ku dhahdaa waad mahadsan tahay sababtoo ah ma ahan wax adiga waajib ayada dusha ka saaran balse waxay kugu sameynaysaa jacayl adiga ku qabto ixtiraam adiga ku ixtiraamayso midaas ha ilooba weligaaga adigana uga mahad celi waxay ku sameynayso koob shay haddii ku keento waxaad ku tiraahdaa waad mahadsan tahay gacaliso waad mahadsan tahay hadday wax kuu kariso waad mahadsan tahay hadday wax kuu dhaqdo waad mahadsan tahay haddii caruurta ku hayso waad mahadsan tahay ku kar midaas ha iskaga qaadeen arrinta inay tahay ha iskaga qaadaan arrintu inay tahay mid ayada oo dusha ka saaran oo maaragtay ay inay sameyso ay tahay may wax walba ay ku sameyso ku kar una kar oona uga mahad celi mida saddexaad isu qurxi sida aad u jeceshahay inaad aragtid ayada inay ahaato mar walba gabadha ugu qurux badan adduunka ayadana waxay jeceshahay inay ka aragto mar walba inaad ahaatid ninka ugu quruxda badan adduunka isu qurxi xaaskaaga isu qurxi ugu labiso dharka ayada ugu jeceshahay u marso barfuumka ay ugu jeceshahay nasiib daro nimankeena intaysan guursan ka hor waxay u labistaan si aan caadi ahayn waxay isku habayaan si aan caadi ahayn balse marka ay guursadaan bilooyin kadib arrintaas way iloobaan waxay iloobayaan arrin muhiim ah arrintaas oo ah in gabadhan asaga guriga xaaskiisa ah gacalisadiisa inay u baahan tahay inay aragto ninkeeda inuu ahaado mar walba ninka ugu sareeya ninka ugu qurxoon adduunka wuxuu kugu labisanayaa labis aadan adiga oo ninka ahba aadan fiirin karin maxay kula tahay ayada marka run ahaantii saad iska bedel u labiso xaaskaaga sidii marka horeba aad ugu labisan jirtay haddana sidii un ka daran weliba si fiican u labiso oo maxaad diiday ma sheekadu waxay ahayd oo keliya intaan isguursan ka hor soo ma rabtid jacaylka inuu sii socdo markaasi ka waran maxaa ugu labisan jirtay waxaa ugu labisan jirtay sababtoo ah waxaa rabtay inaad jacaylkeeda kasbatid sax inaad jacaylkeeda kasbatid inay ku jeclaato aad ku jeclaato ayaa isku habeyn jirtay
haddana waa sidii un ma rabtid maa jecelkeeda hadda weli ma rabtid jecelkeeda haddii aad rabtid jecelkeeda isuu qurxi weli sidii unbay sheekadu sidii unbay u socotaa hadda unbay weli kasii fiican tahay somaa si ay maalin ka dambe si ay ku jeclaato isu qurxi ha iloobin midaas waa arrin aada iyo aada muhiim u ah fikradda afaraad ammaan sida nimanka ay u jecel yihiin in la dhiirogeliyo oo waxay sameynayaan lagu dhiirogeliyo dumarkuna waxay u jecel yihiin in la ammaano gabadha marka aad ammaantid waxay ku doorsanaysa ma lahan ammaan ku ammaan quruxdeeda ku ammaan labiskeeda ku ammaan guriga marka ay ku habayso ku ammaan marka ay qolka bedesho oo ay ku qurxiso gacaliso caadi ma ahan maanta waxa aad samaysay guriga aada u qurxoon yahay gacaliso caadi ma ahan cuntada aad karisay maanta aada bay u macaan tahay wax walba ay samayso ku ammaan ha iloobin furahan waa furo aada iyo aada muhiim u ah oo qalbigeeda aad si toosa ugu furi kartid ku ammaan wax walba ku ammaan wax walba ay kuu samayso fikradda shanaad la tasho xaaskaaga gacalisadaada wax walba oo ku saabsan arrimaha guriga kala tasho mid ogow haddii aad aragtid guri la isku buuqayo oo mar walba la isku khilaafsan yahay la isku dagaalayo gurigaasi waa guri ka shaqaysa hal fikrad oo kaliya iyo hal ra'yi oo kaliya waa guri hal ra'yi oo kaliya awood ku leh aan ra'yi dadka kale lagu dhageysan kaas guri ma aha guriga farxadda iyo naxariista iyo isfahanka loogu noolaanayo waa guriga ay lamaanuhu mar walba isla wadaagaan ra'yigooda arrin ayaa timid kaalay gacaliso maxaad ka qabtaa arrintaas ila fiiri bal ra'yigaaga keen arrintan ayaa dhacday maxaan ku xallin karnaa maxaan ka samayn karnaa la tasho xaaskaaga ha ka dhigin qof aan ra'yi lahayn midaas diinteenana ma qabto bani aadamnimadana ma waafaqsana waa inaad la tashataa ila fiiri suubanaha sida uu la tashanayo xaaskiisa umu salama sulhul xudaybiya marka ay saxaabadu ka diideen inay madaxooda xirtaan wuxuu u soo galay xaaskiisa umu salama oo markaasi la socotay wuxuuna ku yidhi maxaan sameynaa waxaan u sheegay oo aan amar ku siiyey inay madaxa iska xiraan way iga diideen maxaan sameeyaa waayo suubanaha haddii uu ku celceliyo oo amarkiisu ay diidaan wuxuu ka baqayaa in meesha ay timaado carada alle subxaana wa tacaala waa mowqif aada iyo aada u weyn waa arrin u baahan xal degdeg ah haddii kale sheekadu waxay noqonaysaa mid adag waa markii ugu horeysay oo ay wax ka diidaan suubanaha maxaa xal ah yuu aadayaa suubanaha abubakar miyuu aaday cumar miyuu aaday may wuxuu aaday jecelkiisa wuxuu aaday xaaskiisa wuxuuna ku yidhi umu salama maxaan sameeyaa waxay ku tiri yaa rasuul allah fiiri xigmadda fiiri caqligeeda hooyo umu salama fiiri sida ay u xalinayso mushkiladda waxay ku tiri yaa rasuul allah adi soo ma rabtid inay madaxa iska xiraan wuxuu ku yidhi haa haddii aad sidaa rabtid adiga xiro marka hore haddii ay ku arkaan adigoo xiranaya waxay ogaanayaan arrintu inay meesha ku dhammaatay kadibna iyagana way xiranayaan adiga ayay kugu dayanayaan suubanaha wuu u bogay fikraddii kadibna madaxu ayuu xirtay markay arkeen in suubanaha uu xiranaya ayagana maxay sameeyeen midba midka kale wuxuu bilaabay inuu xiro arrintiina sidaas ayay ku dhammaatay mushkilad la-aan wareer la-aan saasay ku xalisay yaa xaliyey hooyo umu salama ra'yigeeda saliimka ah ayay ku xalisay la tasho xaaskaaga la tasho ee ha ka dhigin qof aanan ra'yi lahayn kala tasho arrimaha guriga wax walba kugu soo gudboonaada ayadoo u imow la tasho aday ka qaado ra'yigeeda ha dhihin sida ay dhahaan
Soomaalideenii hore midaasna kulliba ma ahan wax fiican inaan onaga kaga dayano waxyaabaha dhaqanka qaldan ee kamid ah hidii iyo hidiyeeni iyo dadkeeni hore waa inaynu bedelnaa waxay dhahaan ka dhageyso laakiin ra'yigeeda ha qaadanin dumarku lalama tashto waa sida waxyaabo aan ogeyn meesha ka keeneen ma garanayo asalkooda iyo meesha ka timid diin asal kuma laha bani aadanimana asal kuma laha marka sidaas oo kale sameeyeen inaad la tashatid haddana aadan qaadan oo kaaga socodsiisid taasna la tashi ma aan kaas la tashiga waa inaad qaadatid qofka aad ka dhageysanaysid ra'yigiisa hadduu uu sax yahay hadduu uu yahay ra'yi wanaagsan maahan waan ku dhageysanayaa balse ugu dambaysta kayga baa soconaya taas la tashi ma ah iska dhaamidaas si dhab ah way dhab ka tahay cadaalad ay ka tahay u dhageyso ula tasho hadduu ra'yigaas uu yahay ra'yi wanaagsan oo meeshaas ku haboon fuli qaado waana huba inaad ku liibaani doontid ra'yigaas fikradda lixaad fahan baahideeda dumarku waxay nooga duwan yihiin sida maskaxda qaabka ay u fikiraan qaabka hataa ay u hadlaan waa wax Alle subhanahu wa ta'ala oo ayaga ku abuuray tusaale ahaan waxay ku dhahaysaa xaaskaada walahi adiga maalmahan ima jeclid adiga waxa u qaadanaysaa inaad inaad ayada jeclayn balse ayadu sidaas kama wado waxay ka wadaa sidaadii hore ima jeclid sidaadii hore ima jeclid oo macnaheedu ay tahay wixii adiga ii sameyn jirtay awal hore ima sameynaysid sida markii hore ihtimaam ii siin jirtay ima siinaysid markii hore waxa ahayd qof iga warhaya mar walba oo i wada oo maartay oo si fiican wixii aad ii sameyn jirtay ima sameynaysid ay ka wada sidaadii hore ku soo laabo kama wado adiga ima jeclid ana waxaan u qaadanaynaa markay saas dhahdo wallahi ima jeclid waxaan u qaadanaynaa inay ka wado ima jeclid gabi ahaan ima jeclid la saas kama wado waxay ka wadaa waa jeceshahay balse waxaan rabaa sidaadii hore inaad igu soo noqotid jecelkii awal hore inaad igu soo noqotid waxa awal hore ii sameyn jirtay inaad ii sameysid hadda igaga mashquulshay waxaan ku arkay inaad iga mashquulsan tahay hadda oo wax badan waxyaabo kale aad ihtimaamkaada saartid waxaan rabaa inaad ii soo noqotid saasay ka wadaa tusaale kale waxay ku imaanaysaa ayada oo murugsan oo mushkiladii wax la soo kulantay waxay ku dhahaysaa wallahi maanta arintaasan la soo kulmay saasaan arkay waxaas ay ugu dhaceen sidii waxay kugu sheegaysaa sidii qof raba inaad fikradeeda siisid oo aad xal u raadisid soo ma aha anaga marka ay nimanka saas oo kale noogu yimaadaan oo wax saas noogu sheegaan maskaxda isla markii waxay ku shaqeynaysaa xal ay raadinaysaa balse ayada kaagama baahna inaad xal u raadisid markii waxaan la soo boodaynaa waayo saas saas samee kaas qaado waxaa saa u samee hebelaayo saas samee yani waxaa markii bilaabay inaan amar bixino ay maaragtay waxa ay sameyn lahayd inaan u sheegno midaas uma baahna ayada waxay u baahan tahay inaad dhageysatid bas waxay rabtaa waxyaabaha ka buuxa qalbigeeda in adiga kugu soo maaragtay ay kuu sheegto oo aad u noqotid adiga markaasi dhageysta fiican inaad dhageysatid ka dhageysatid waxaa laga yaabaa ayada inay og tahay halka arintaasi balse waxay rabtaa qof ay u sheegto ay u baahan tahay oo arintaas la qaybsato oo u naxariista markaas adiga maxaa sameynaysaa ka dhageyso kadibna u dhawow bas waxaa u muujinaysaa inaad maaragtay aad dhowdahay oo aad garab taagan tahay bas hadal kale kaagama baahna inaad maaragtay wax u dejisid ma baahna saas samee meeshaas u aad ma u baahna dhageysta fiican noqo una naxariiso tusi inaad maaragtay aad dareensan tahay oo aad la danqanaysid bas intaas oo kale u baahan tahay waxay ku dhahaysaa maxay soo wacweysid telefoon ima soo dirtid ima soo wacdid waxaan leenahay maanta markaan rabo inaan maar shaqada aan ka soo baxay inaan ku soo aan rabay meel waxa aaday hebel meel lagu casuumay meesha aaday meesha maartay aan ku soo dahay waqti bawaan waaye cudurtaan markaas oo kale uma baahan ayad markaas saas dhahdid
waxay u qaadanaysaa inaad ka wadid يعني wuxuu diidan yahay inaan ani weydiiyo maxay yani wuxuu diidan yahay inaan aan weydiiyo maxay isoo wicweysay wuxuu u raadinayaa tabriir oo maaragtay arintaas asaga isoo wici waaye inuu u samaysto wax uu ku cudur daarto cudurdaar ayuu raadsanaya saas dhahays adi maxaa lagaa baahan markaas markay saas u dhahdo inaad samaysid inaad dhahdid waan ka xumahay bas wax kala ku daran markaas saas dhahdid waxay leedahay haa wuu qirtay wuu og yahay inuu qaldamay balse wuu qirtay qaladkiisa bas arintan way dhamaatay halkii aan dhihi lahaa saas waay ayadu ma u baahan arrimo badan arrimahaas oo dhan waxay u baahan tahay inaynu fahno waayo waxay dhalinaysaa haddii aynan fahmin qaababkaasi xiriirka ay iskula xiriiraan dumarka iyo ragga waxay keenaysaa isfahan waa iyo isku dhac in la isku dhaco somaa ilaa maana isku dhaca waa arrin u baahan inaynu si fiican u fahno fikradda toddobaad u muuji jacaylka gabdhuhu waxay jecel yihiin mar walba inay dareemaan in jacaylkii uu weli sii jiro balse annaga rag ahaan waxaan u qaadanaynaa jacaylka inuu yahay mid nagu filan tahay inaynu sanadkiiba hal mar inaynu ku dhahno waan ku jecelnahay haddii aynu xaaskeen aad ku tirahdid waan ku jeclahay sanadkii inay midaasi kugu filan tahay ayaad u qaadanaysaa balse saas maaha ayadu waxay rabtaa inaad mar walba aad u muujisid jacaylka inaad mar walba aad ku tirahdid waan ku jeclahay waayo midaas waxay dareensiinaysaa in weli jacaylka uu sii jiro waxay siinaysaa adkeyn in arintii jacaylkii uu sii socdo balse haddii aad ka aamustid oo aad muddo aadan dhihin waxay u qaadanaysaa in meesha aan jecel jirin in jacaylkaa u isbedelay in adi aadan sidii hore u jeclayn saasay u qaadanaysaa saas daraaddeed waa muhiim si aad u kasbatid jacaylka xaaskaaga inaad mar walba aad ku tirahdid waan ku jeclahay ilooyin mar walba markaad seexanaysid markaad soo kacay markaad la kulantid mar walba u muuji inaad jeceshahay ha ka daalin midaas waayo mar walba asaas dhahdid waxay sii xoojinaysaa jacaylka dhexdiina ah fikradda sideedaad kala qayb qaado hawsha guriga ku caawi hawsha guriga ha noqonin qof aan naxariis lahayn haddii aad aragtid ayada oo ku mashquulsan arrimaha guriga oo caruurtiina halkan ay ka dhibayaan marna rabto inay wax kariso oo maaragtay aysan isku wadi karin adigana meesha iska fadhidid ma ahan inaad telefishinka iska daawatid balse waxaa lagaa baahan yahay inaad kacdid oo aad garabkeeda istaagtid oo aad ku caawisid kushiinka waxay u baahan tahay mise ilmaha aad ka qabatid ku caawi hawsha guriga ha dhihin ayadaa samaynaysa wax walba midaas jacaylku ma kordhiyo haddii aad rabtid qalbigeeda inaad kasbatid jacaylkeeda inaad hanatid waxaa u baahan tahay inaad caawisid ku caawi hawsha guriga sidoo kale waxyaabaha yararka ee adiga kugu saabsan sida sariirta inaad markaad kasoo toostid inaad iska haweysid dharkaaga inaad meeshii loogu talagalay inaad dhigtid waxaas ha u sugin in laguu sameeyo balse adiga samee dharka markaad iska bixisid meeshii loogu talagalay dhig ha isaga tuurin halkan kuwa halkaas ha ku tuurin si maarata hadhow ay ayad usoo aruuriso midba mid ay ka raadiso maya mid walba markaad iska bixisid waxaaga meeshooda dhigo isku lalaabo meeshooda sariirtaad markaad ka toostid isku habee adiga ha u sugin in ayada ay ku habayso iska habee waxaas waa wax fudud balse waxaad ku caawinaysaa ayada ayaad ku caawinaysaa waayo howlo ka waaweyn ayay ku jirtaa marka wixii oo dhan halkii aad adiga isugu geyn lahayd waxa adiga dhinacaaga adigana ka samee dhinacaaga ka samee oo caawi suu alle kuwa caawiyo midda sagaalaad ugu yeer magaca ugu jeceshahay waxaa murug ah oo aan aada u dhibsadaa runtii markaa nimanka qaarkooda ay ugu yeeraan xaaskooda naayaa heblaayo hooyada aaway ma aqaano ma ayaga waxay soo guursadeen naayaa waxay soo guursadeen hooyada aaway mise waxay soo guursadeen gabar magac leh oo ay reer ka soo wateen waxay soo guursadeen
gabar magac leh ay qoyskooda ka soo wateen maxaa marka kuu diidaa inaad magaceeda ugu wacdid maxaa kuu diidaa inaad magaceeda ugu wacdid waa wax laga xumaado naayaa magaca ma ahan heblaayana magaca ma ahan magac ayaa ilaahay siiyey magaceeda ugu yeer qofna ayaa lahay ma u malaynayo inuu qof jecel inay keenaysa midaas heblaayo inay jecel keenaysa ma u malaynayo ma ogi inay ayaga saas u haystaan balse aniga ma aaminsani midaas inay jecel keenayso qofkii raba inuu hanto qalbiga gacalisadiisana ma ahan inuu yidhaahdo ereyadaas balse waxaa laasimku waa inuu isticmaalo ereyada ugu fiican ugu yar magaceedaan ku leeyahay iskaba dhaaf inaad magaceeda qurxisad dadka waxaa laga kari leeyahay inay magaceeda ugu yaraan iskaba dhaaf inay magaca qurxiyaan soo ma ahan magaceeda ugu yar kasii fiican inaad usii qurxisid magaca aad ka dhigtid magaca qurxoon inaad ugu yeertid magaca ugu jeceshaha eeda ee hadhiin caruurta markaad weydiinaysid hooyadiina aaway balse magaceeda ugu yeer magaceeda ugu yeer macaanteeda aaway gacalisadeeda aaway heblaaya aaway magaceeda caruurta bar jaceylka dhexdiina ah ee ha barin inaad la hadlaysid qof maaragtay adiga aadan waxba rajaca ka lahayn oo ayaga unbay kuu dhashay bas meeshay ku dhammaatay arrinta caruurta midaasa u muujinin caruurta u muuji jaceylka u muuji kalgaceylka aada u haysid hooyadooda fikradda tobnaad sii waqti gacalisadaada waxaad siisaa waqti ayada u gooni ah usbuucii hal mar ha noqoto 2 jeer ha noqoto muhiim waxaa ah inaad waqti ayada u samaysid waqti inaad siisid oo aadan wax kale samaynaynin balse waqtigaasi ayada ayaad ugu talagalaysaa si ayada ula sheekaysatid si aad uga wada hadashiin wax walba weliba waxaa fiican inaad isla baxdeen guriga aad ka tagtiin oo aad aadeen meel degan oo aad jeceshihiin labadiinuba oo si fiican uga sheekaysatiin meesha ugu maqaayada ugu fiican inaad wax kasoo wada cuntiin oo soo laabatiin labadiini oo habeenkaasi uu yahay habeenkii ugu fiicnaa noloshiina mar walba kulan sidaas oo kale ah ha idin dhex maro adiga iyo gacalisadaada midaas waxay xoojinaysaa waxay soo celinaysaa arrimihii hore markaad isbaranayseen markaad ku jirteen shukaansiga waxay soo celinaysaa intaan isguursanin ka hor qisadii dheereed ayay soo celinaysaa waa xusuus aada u fiican in usbuuciiba hal mar haddii hadda aada mashquul tahay oo zaa'id ah inaadan iloowin marnaba inaad martaas samaysid usbuuci ugu yaraan hal mar inaad samaysid oo aada meel saas aadiin oo aada banaanka kasoo wada cuntaysiin haddii caruur aada leedihiin caruurtiina wadatiin oo aada aadiin xadiiqooyinka iyo meelaha fiican ayagana meesha kusoo cayaaraan idinkana si gooni u sheekaysatiin mise hataa guriga hataa inaad guriga joogtiin balse inaad iska xirtiin wax kale oo dhan telefishinka iyo waxyaabahaas oo inaad iska wada joojisiin idinka wada fadhiisatiin si aad u wada sheekaysatiin bas waqti siintaasi aada bay muhiim u tahay waxayna sii kordhinaysaa jaceylka waxa lamida ma jiraan ha iloobin inaad sidaas samaysid fikradda 11aad noqo dhegaysto fiican dumarku waxay u baahan yihiin in la dhegaysto sababtoo ah ma aamusaan way naga hadal badan yihiin anaga midaasi waa wax ilaahay ayaga gooni u siiyey cilmi ahaan waa la ogaaday midaas marka waxay rabaan inay ayaga hadlaan in badan saa daradeed waxaa arkaysaa inay gabar kale wacdo saaxiibteeda ah wax kale uma wacayso waxaa laga yaabaa inay wax yar ka hor isla joogeen balse haddana waa wacaysaa waxay rabtaa inaad la sheekaysto oo kaliya laakiin nimanka waa adag tahay qof saaxiib inuu nin kale saaxiibkiisa u waco asagoo wax kale u sheegaynin balse la sheekaysto oo kaliya soo ma hataa wuu ku weydiinaa marka haye maxaa darna maxaa cusub uu ku leeyahay wuxuu u malaynayaa inaad wax uun u sheegaysid waayo waa sidaas waxaa ku programsan hadaf yani wax walba waxay nimanku waa aqligooda saas u shaqeeya in telefoonka uu yahay yani wax un baa lagaga baahan yahay mise wax un baa lagu weydiinayaa mise wax un baa jira balse gabdhuhu sidaas ma aha gabdhuhu waa isla hadlaan waxay iskula hadlaan si ay u sheekaystaan oo kaliya
sheeko oo keliya ayadana ma dhahayso maxaa darnaa maxaa cusub may way ogtahay inay sheeko un usoo wacday ayadana way jeceshahay midaas marka maadaama ay sidaas jeceshahay ha u ogolaanin xaaskaaga inay saaxiibteeda wacdo oo ay la sheekaysato adiga u noqo qofkaas dhegeysto fiican noqo markaas oo kale waxaa laga baahan yahay adiga inaad iscelisid si fiican uga dhegeysid sheekadeeda kadibna u sheekaysid oo aad noqotid dhegeysto fiican hadalka ka goynin mar walba markay hadasho wax kale la soo boodin inaad wax sheegtid mise wax xalisid iska aamus adiga dhegeyso bis noqo dhegeysto fiican indhaha ka fiiri la soco waxay kuu sheegayso ihtimaam sii daryeel hadalkeeda si fiican ihtimaam u sii midaas waxay xoojinaysaa ihtimaamkaas iyo dhegeysigaas fiicani waxay sii xoojinaysaa isku soo dhawaanshihiina ha iloobin marnaba midaas mida 12aad dhunko waxaan ku sheegay videogii koowaad dhunkashada lamaanaha isdhunkadaan inay xoojinayso noloshooda inay siinayso cumri dheer iyo weliba caafimaad ha iloobin markaad guriga ka baxayso aad aadayso shaqada inaad xaaskaaga gacalisada inaad dhukantid oo aad maaragtay aad si naxariis ku jirta u macsalaamaysid markaad ka baxaysid guriga ha iloobin dhunkashadaas markaad ka tegaysid iyo markaad imaanaysidba markaad soo geshidna ayada ku bilow caruurta hortooda ilmahayga aaway dhihin ayada ku bilow marka hore marka ayada aada dhunkatid waad salaantid kadib ilmaha midmid u salaan waa arrin muhiim ah midda 13aad dagaalkiina yuusan noqonin mid dadka ay ogaadaan noloshu kuma dhisna mar walbaba farxad soo maahan iyo heshiis ma jiro dad isla wada nool oo yani mar walba heshiis ahaanaya way fiicnaan lahayd waa arrin fiican balse haddana waxaa jira hal kale oo ah in xataa haddii aynu wax isku qabsano wax isku weyno inaan arrintaasi ka dhigin mid weyn anaga ayaa midaasi weyneyn karna amaba hoos u dhigi karna waxba ka soo qaadi karin waxay ku xiran tahay lamaanaha marka adiga xaaskaaga waxay isku qabatiin aad ku carootid mise wax dhacaan aad wax isku khilaaftiin ha ka dhigin arrinta mid weyn oo ay gaarto maaragtay reerkeeda iyo adiga reerkaaga iyo marka kadib ay soo dhaxgalaan dad meesha iyo hal heshiisiye iyo ma fiicna midaas yani buuqa dhexdiina ha ku koobnaado hadhow si tartiiba u fadhiista si tartiiba u xalliya inna yaysan ogaanin hataa caruurtaada ka qari in adiga iyo hooyadooda iskhilaafsan tihiin mise wax idinka dhex jiraan ha u muujinin hortooda ha ku muujinin ku muuji jaceylka balse ha ku muujinin dagaalka caruurta mar walba hay arkaan hooyo iyo aabbo inay mar walba heshiis yihiin inay mar walba isjecel yihiin midda 14aad u naxariiso qoftan waxay ku haysaa hawl badan oo aan la xisaabi karin waxyaabo waxay ku sameynaysaa u baahan inaad gacmaha iyo meel walba ka dhunkatid runtii ilaa uga mahadcelisid saa darteeda u naxariiso adigana u dhamre u tur iskana ilow inaad ku qaylisid iskana ilow sidoo kale inaad wax ku dhufatid intaas ma ahan ragnimo nin inuu garaaco xaaskiisa taas ma ahan ninimo ma ahan suubana calayhi salaatu wasalaam weligiisa xaaskiisa wax kuma dhufan hataa wax oo yani rumay hataa weligiisa uma taaban wax ma garaacan weligiisa ninka raggaa waa ninkaas nimanka xaasaskooda iyo dumarkooda garaaca waa cudur saas waa jiro ma fiicna midaas waa in qofkan waa qof adiga oo kale ah waa qof adiga kula mid ah waa saan soo sheegay ma ahan qof adiga meesha ka soo kaxayso salaad ugu sameeyso u garaacaysa may midaas diintana ma qabto bani aadamnimadana ma ahan mana fiicna midaas akhlaaqda fiicanna ma ahan dad waaweyn iska garaacay isku qaylinaya mar walba
noqo qof naxariis badan u naxariiso u tur haddii aad ka aragtid waxyaabo ku dhiba uga dulqaado ugu samir sida sayidkeena Cumar ibn Khataab uu ku sameeyay oo kale xaaskiisa sidaas samee u naxariiso mar walba u tur caruurta hortooda ha ugu qaylanin hana maaragtay kugu qaylan caruurta ay kula joogaan hortooda ha ugu qaylanin midaas waa mid aad iyo aad u baahan inaynu iska ilaalino raggeena Soomaalida caruurta mar walba aysan arkin arrimahaas haddii aad horta inaad qaylisid maba ahanba haddii aad qaylinaysidna qolka gal meesha isku soo xir meesha ku qaylin keligaa dadka kale aysan ku maqlin caruurta iyo wax qofna aysan ku maqlin u naxariiso u tur mida 15aad la soo xiriir mar walba markaad shaqada joogtid markaad ka maqan tahay guriga soo xiriiri ka warhay saa tahay gacaliso waan kuu xiisay waxaan dareemayaa inaad kelinimaan dareemaya sidaa tahay maxaa qabatay soo ma ficnid mar walba soo wac ka warhay midaasi waxaad sii dareensiinaysaa inaad la joogtid haa shaqada aad ku maqan tahay haa guriga ma joogtid balse waa iska waraysiin mar walba midda 16aad u hadiyee usoo hadiyee markaad shaqada ka soo laabatid markaad meel ka timaadid hore usoo iibi ubax waxba oo maaragtay oo saas aran kuguma fadhiyo laakiin waxaad ku soo jeedanaysaa qalbigaada guriga markaad imaanaysid hore usoo qaad ubaxaasi u keen u hadiyee barfuunka ay jeceshahay usoo iibi wax ay jeceshahay usoo gad u hadiyee mar walba hadiyadu sideedaba waxay mar walba keentaa in qulubta isku soo dhaweyso qalbiyada ay isku soo dhaweysaa hadiyada ha iloobin hadiyada mar walba ha iloobin hadiyada midda 17aad ku dheh waan ka xumahay oo cudurdaado xaaskaaga gacalsadaada haddii aad ka qaldan tahay aad wax haleysid ha ku dhegin maaragtay aysan ku qaadin inaad maaragtay aad ku dhegtid ra'yigaaga balse oo cudurdaado waan ka xumahay gacaliso qaladkayga ay ahayd ma ahayn inaan sidaas sameeyo aad ayaan uga xumahay u cudurdaaro mar walba dad wax ka helayso cudurdaaro hataa haddii aadan wax ka helayn oo maaragtay isku dhacdaan u cudurdaaro adiga bilow noqo qofka ugu horeeya ee cudurdaarta waxaa arkaysaa iyadoo ayadana ku tiraahda may aniga ayaa qaldanaa iga raali noqo qof furfuran ha noqon qof maaragtay oo ku adag ra'yigiisa oo ku dhegan midda 18aad la kaftan la ciyaar xaaskaaga la saaxiib ayada saaxiib ka dhigo la sheekayso la kaftan la ciyaar u dhoolo cadee mar walba noqo qof faraxsan qof wajigiisu furfuran yahay qof wajigiisu faraxsan yahay ha noqon qof farxeran marka guriga soo gashidba qof maaragtay isagoo dhan waji xirxiran oo guriga waxa sameey wax walba amar waxaas la keeno may jacaylku amar ma ahan jacaylku waa codsi waxaas ma sameyn kartaa waxaas ma soo qaban kartaa gacaliso shaah ayaan u baahnaa ka waran yani waxaas ma noo soo sameyn kartaa codsi ka dhig ha noqon qof boos ah oo wax ku amra midaas waa xafiisyada iyo meelaha balse guriga kuma dhisna amar iyo qof amar fulinayo qof amar bixinayo iyo qof amar fulinayo midaas guriga kuma dhisna guriga wuxuu ku dhismaa laba qof oo isqiimaysa laba qof oo maartay qofka kale codsi isku leeyihiin inaan wax ka codsado waxaas ma sameyn kartaa waxaas ma qaban kartaa saas samee ka codso gacalsadaada maaragtay noqo qof oo la ciyaara la kaftama maaragtay u sheekeeya sheekooyin qosol uga sheekeeya la qosol sheekooyin qosol raadi oo ayada ka qoslaysa haddii aad adiga ahayn qof sheekeeya raadi maaragtay sheekooyin qosol raadi oo ayada ka qosolsiya u sheeg markaas si ayada u qosasho uga sheekeeya si maaragtay u faraxdo suubanaha xaaskiisa saas ayay sameyn jireen hooyo Sawda mar waxay ku daba tukatay suubanaha sallallahu alayhi wasallam kadib markay salaada ka baxay waxay ku tiri yaa rasuulallah galaashada markaa ku tukanay waa rukuuc markaa ila rukuucday waxaan ku sigtay saa ila dahday aan rukuuc saa uga dahay inay sankayga dhiig ka yimaado suubanaha aad ayuu ugu qoslay soo jeedid way la kaftami jireen suubanaha sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa hooyo Sawda u jeeda yani saa ila rukuucday rukuuc ugu daahisay darteed waxaan ku sigtay in sankayga dhiig ka yimaado way la kaftamaysaa waayo waa jaceelkeeda waa gacliheeda maxaa ku diidan la kaftantid oo la ciyaartid la ciyaar la kaftan mida 19aad ilaali qalbigeeda qoftan
waxaa isa soo marteen adduunyo iyo waayo waxay ku haysaa caruurtaada, waxay maaragtay dee ku dulqaadanaysay intaasoo sannadood, waxay kuu samraysay intaas, waxay kuu qabatay waxyaabo aan qof kale kuu samayn karin, waxay ku ilaalinaysay sirtaada, waxay kugu dulqaadatay wax badan. hadda marka ay weynaatay ay xoogaa ay da' gashay, ma habboon tahay inaad ka daba keentid gabar yar ood la guursatid? suubanaha sala allahu alayhi wasalam hooyo Khadiija intay isqabeen weligiisa gabar kale kama daba keenin. ma garanaysaa sababtoo ah waxay ahayd noloshiisa. wuxuu yidhi waxay rumaysay marka ay dadka igu gaaloobeen oo ay diideen inay rumeeyaan. waxay ila garab istaagtay hantideeda marka ay dadka ii diideen inay wax siiyaan. way garab istaagi jirtay, way dhiirin jirtay. marka uu ka soo noqday oo malaku Jibriil u yimid oo ku yiri iqra oo guriga ugu yimid isagoo gariiraya, waxay ku tiri laa wallah, waxa ku soo gaaray dhima ahan, waxaa tahay qof karaameeya dadka, runlow ah, qaraabada sooriyeeya, martida sooriyeeya. waxay ku ammaantay sifooyinkiisa ugu fiicnaa. waa waqtiga uu ku sugnaa oo u baahnaa hadalladaasi inuu maqlo. waxay ku dhiirinaysaa inuu yahay qof wanaagsan oo waxaasi inuu jin u yimaado aana suurtoobaynin, balse waxa u yimid inay yihiin wax wanaagsan iyo waxay inuu u yimid. suubanaa aad ayuu u jeclaa hooyo Khadiija. saas darteeda xitaa markii ay dhimatay in wax yar laga sheego uma dulqaadan jirin. hooyo Caaisha ayaa ka sheekeynaysa, waxay tiri ima ogoleen inaan wax yar ka sheego. wuu boodi jiray marka ay hooyo Caaisha wax yar ay ku tilmaanto hooyo Khadiija. uma dulqaadanaynin midaas. waa oofinta ballanta, waa jecelkiisii. saas daraaddeeda siduu u ilaalin jiray qalbigeeda hooyo Khadiija. suubanaha weligiisa gabar kale lama guursan. way ka weyneyd, wuu awooday inuu gabar yariisa soo qabsado markaas uu guursado, laakiin ma sameynayo midaas. sababta wuxuu dhowrayaa qalbigeeda, ma doonayo inay wax dhibsato, wuxuu ka ilaalinayaa midaas. walow ay bannaan tahay qofka inuu guursado 4, 2 iyo 3, haddana waxaa wanaagsan qofka inuu u oofiyo qofka kale ee intaad isa soo mareen oo intaad isa soo noolaayeen oo rafaad iyo qaraar iyo macaanba isa soo mareen. waa inuu ka ilaaliyaa wax kasta oo dhibi kara qalbigeeda. nasiib daro nimankeena waxaa ku badan in gabar yariis ay soo guursadaan, kadib marka ay weynaato oo intaad isa soo mareen in gabar kale ka daba keeno. intaas kuma habboona qofka ballanta oofinaya. noqo adiga qof qalbigeeda ilaaliya. walow ay kuu bannaan tahay inaad guursatid, balse haddana waxaad ilaalinaysaa qalbiga, jaceylkaaga, gaclisadaada, sida uu suubanaha u sameeyey hooyo Khadiija. maxaa ka wanaagsan jaceylkaas? waa jaceylkaan ugu jecelahay mar walba inaan akhriyo hooyo Khadiija iyo suubanaha sala allahu alayhi wasalam. midda 20aad, ha ka soo daahin guriga habeenkii. xaaskaaga adiga ayay ku sugaysaa. keligeeda guriga inay joogto way dhibsanaysaa, waxay dareemaysaa kelinimo. saa darteeda ma habboona inaad saaxiibada iskala soo baashaysid, inaad saaxiibada iskala joogtid waqti dambe oo hadhow aad tiri aniga danina ahayd guriga aniga ayaa liwaax ka ah, waqtigaan rabaan tegayaa. aa u tagtid ayadoo la seexday, maanta haddii kale ayadoo dhafarsan maanta dhan say kuu sugaysay. keligeed carruurta intay seexdeen meesha fadhida inaad tagtid ma habboona. waxaa wanaagsan guriga inaad waqti munaasaba ku joogtid. shaqada markaa ka soo baxdid guriga inaad soo aadid. markaa wax kale samaynaynin inaa ayada la joogtid, garabkeeda taagnaatid. midaas aaday muhiim u tahay. Soomaalideena badankeeda waa arrin aan u baahanahay inaynu ka fikirno. dadka isjecel
ee dhisa guri farxad iyo reer loogu nool yahay. Macnaheedu ma aha gurigaas inuu yahay guri ka maran isku dhac marmar in wax la soo khilaafo, balse waxay kaga duwan yihiin dadka kale. Ayaga khilaafkooda iyo waxyaabaha dhexdooda ka dhaca waxay ku xaliyaan ayaga dhexdooda ayaa xaliya, way isla tashtaan, way isjecel yihiin. Arrintaana ayaga kuma xirna waxa markaasi dhacay, qofka ma ahan, balse ficilka ayay daaweeyaan. Ficilka markaasi dhacay ayay daaweeyaan ee qofka wax kama sheegayo. Adiga sidaasaa tahay, adiga wax guriga wax kuma ficilid ma dhahaan. Dadka isjecel ayaga wax iskama sheegaan, balse haddii ay dhaco wax oo maaragtay oo la isku khilaafo, haddii ay dhacaan wax ayay daaweeyaan ee qofka kama hadlaan. Waxaan jeclahay oo aad u jecelahay inaan arko guryaheena Soomaaliyeed, guryaheena oo dhan inay noqdaan guryo ku dhisan jacayl iyo isqadarin, is-ixtiraam, is-qiimeyn. Inaan arko caruurteena inay noqdaan caruur lagu soo koriyey, lagu soo barbaariyey jacayl, waalidiin isjecel oo hortooda ku muujinayeen mar walba jacaylkooda. Inaan arko caruur aanan weligooda indhahooda saarin aabbo iyo hooyo isu qaylinaya, mise ka daran aabbo hooyo ku qaylinaya ama wax ku dhufanaya inay arkaan. Midaas waa rajadeeda aan ku rajo weynahay. Waxaa isku dayay labadan qaybood ee fiidiyogan inaan ku soo koobo fikrado aan aaminsanahay inay keenayaan in guryaheena ay noqdaan guryo la isku jeclaado, guryo la isku ixtiraamo, guryo la isku qiimeeyo. Wixii qalad ah aniga iyo nafsadeeda ay ka imaadeen, wixii wanaag ah alle ayay ka imaadeen xaggiisa. Aad iyo u mahadsan tahay. Waan kaga mahadcelinayaa daawashada fiidiyogan. Waxaan ku rajaynayaa mar walba inaad ku noolaatid guul, farxad aan marnaba dhammaanayn. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.